ما ضاع حق خلفه مطالب ملمو حق نكي لها دبدا هايستو waxyaabaha oo muhiimka waxa kamida oo ay tahay in aan falsafad ahaan aaminno falsafad waa maxay waa aragti nololeed oo qofku ka duulo in qofku uusan ka tanaasulin waxyaabaha xuquuqda uu leeyahay waxyaabaha aan xuquuqda u leenahay waxa kamida waliba casrigan la joogo adduunku wuxuu noqday nidaam cusub oo qaatay ah dawlado xuduud xadidan bay leeyihiin oo cayiman arrinta Somaliland waa xuduud kamid ah xuduudaha Soomaaliya waa sax dadka reer Somaliland ee deegaankaas dhulkooda ayaga iska leh xaq u leh laakiin nidaamka la qaatay ee casriga ah ee dawliga ah waxa ay ka tirsan yihiin dalka Soomaaliya deegaan ahaan bay uga tirsan yihiin siyaasad ahaan bay uga tirsan yihiin matalaad ahaan bay uga tirsan yihiin dhib iyo dheef dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan bay la qabaan nidaamka ay samaysteen waa nidaam leh aragti ah inay Soomaaliya ka go'aan laakiin ma aha aragti dadka Soomaaliyeed ay isku raaceen oo ay heshiis ku yihiin oo ay ka mid yihiin dadka deegaanadaas taga in dalka noocaas iyo deegaanka noocaas la ogolaado in wax lagu darsado dal waagi ay dal kala hayn midaysnayn oo maaragtay halka xuduud lahayn dal sharcigan uu ku qornaa baasaboorkeena laguma tagi karo waxyaabaha aan ku faani karno way kamid ahayd baasaboorkeena inaan lagu tagin dal ku dhisan gumaysi iyo dulmi sidaa daraadeed waxa la rabaa qof walba oo Soomaaliya waxa ku soo maaragtay waajib noqday oo ku soo biiray mabaadi'diisa in uu difaaco midnimada ee wada jirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed taas micnaheedu ma aha in laga xun yahay dadka reer Somaliland nidaamkooda iyo dawladooda iyo waxa ay dhisteen balse waa in aan la ogolaan dalkeena in lagu soo maaragtay waarido ama la keeno cadow islaamka iyo insaanka jidda soconaysa taasoo keeni karta in dagaalada hadda bariga dhex ka socda ay la soo gaaraan waxaan ognahay Iran iyo Israa'iil dagaalka ka dhaxeeya waxaan ognahay Xuutiga oo ah garab Iran taabacsan ee dagaalka kala dhaxeeya waxaan ognahay capacity-ga awoodeed ee dagaal ee Iran leedahay dadka reer Somaliland maantay uma babac dhigi karaan haddii laga beegsado maaragtay meelaha kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka ah sida dekadaha iyo airportada waana ognahay in nidaamkaas ee Somaliland dekadaha iyo airportada ay yihiin nidaamkii wax soo saarka ama dhismihii ka haray dawladda kacaanka marka maamulkaas intaas sana jiray wixii uu maaragtay dhaxal ahaan u helay in dadkaas jiritaankooda iyo nidaamkooda lagu burburiyo waa khatar weyn oo amni oo bulshada amnigooda ku aadan sidaa daraadeed waxaan ugu aadan oo si gaar ah ugu aadan dadka reer Somaliland in ay khatarta iyada ah gaashaanka u dururaan cadawgaas ee dalkooda lagu soo dhaweeyay waliba dadka reer Somaliland inay ogaadaan waxa ku soo biiray inaysan ahayn dal aqoonsi ay ka kororsanayaan dhaqaale ay ka kororsanayaan amni iyo horumar ay ka kororsanayaan balse waa dal shiddo maaragtay iyaga saarnayd balaarinaya aad iyo aad baan u rajeynayaa fariinteeda inay meel gaadho muhiim ah sidoo kalena ay dhago laabta u daroola oo caqliga u daroola ay ku dhacdo aad baan idin salaamayaa